Nabad qof waliba ku soo dhowow muuqaalkan. Casharkan waxaynu kaga hadli doonaa singular iyo plural nouns. Singular macnaheedu waa hal, pluralna macnaheedu waa wax hal ka badan. Plural waa wax hal ka badan ayaynu nidhi, singularna waa wax hal ah. Haddii uu hal yahay waa singular, laakiin wixii hal ka badan waxay noqonayaan plural. Soo eg tusaalayaashan dhammaantood waa magacyo. Magacu hadduu yahay hal waa singular, laakiin hadduu magacu ka badan yahay hal waa plural. A ring waa hal giraana. A ring waa giraanta. A ring waa hal giraana. A dog waa hal ay ah. A dog waa hal oo ay ah. A teacher waa macallin waana hal. A teacher waa qof oo hal keliyata. An apple waa hal tufaaxa. An apple waa tufaaxa. An apple waa hal tufaaxa. An egg waa hal ukun ama naalo ama bed. An egg waa hal egg ah. Shanta magac ee aynu ka soo hadalnay waxay gebigoodaba ahaayeen singular. Hagaag aynu u bedelno plural. Sidee ayaan ugu bedeli karaa singularka plural? Su'aal wanaagsan. Waxaynu singularka plural ugu bedeli karnaa inagoo s ama es ku darayna. Ugu magacu hadduu yahay singular aadna rabto inaad u bedesho plural waa inaad ku dartaa s ama es. Soo eg tusaalayaashan. 2 rings laba giraan ah. Waxaynu soo sheegnay 1 ring oo hal giraan ahayd, laakiin hadda 2 rings. Hadda maxaynu haysanaa 2 rings laba giraan ah. Haddaba maxaa ku caddaynaya 2 rings inay tahay plural? Laba mid ayaa ku caddaynaya inay tahay plural. Waa midda koobaade 2 waa wax hal ka badan, yacni waa labadee oo hal way dhaafto xabad baa ku beerto markaa jamac bay noqotay, sax? Waa midda labaade rings halka dambe s ayaa lagaga daray. Qaacidada pluralkuna waa in magacaas s dhanka dambe ku leeyahay. Labadaasba way ku jiraan 2 rings. Marka waxaa cad inay tahay plural. 3 dogs. Waxaynu soo sheegnay hal ay oo 1 dog ahaa. Imika laakiin 3 dogs. 3 waa 3. Dogsna waa s oo s ba xagga dambe ku wadata markaa waa plural. Hadda plural ayaynu u bedelnay 3 dogs. 4 teachers. Waxaynu soo tilmaamnay 1 teacher. Hadda laakiin plural ayaynu ka dhignay 4 teachers. 5 apples. 1 apple ayay ahayd, hadda laakiin waa maxay? 5 apples. Plural ayaynu ka dhignay. Midda ugu dambeysa 6 eggs. Markii singular ay ahayd oo ah 1 egg, hal ukuna. Hadda laakiin waa 6 oo waa 6 eggs. Sna xagga dambe ku wadataa markaa 6 eggs 6 ukuna. Weli waxaynu daawaday dhexda kaga jirnaa casharkeennii barashada luqadda Englishka qaybta grammarka, kaas oo aan maanta ku baranayno singular iyo plural nouns. Waxaad ka dheehanaysaa shaashadda Awli Media. Ila fiiri tusaalayaashan laga yaabay inay yara adag yihiin balse si taxaddar leh dhageyso. Marka ay yihiin singular waa isku mid, waxaad hordhigi kartaa a ama an. Laakiin marka aad rabto inaad plural u bedesho waa inaad ku dartaa s ama es. Xasuuso waxaan idhi s ama es ayaad ku dari kartaa si ay magacaasi uga dhigaan plural. Jamac. Jamacuna waa wax hal ka badan. Okay, soo eeg halkan. Waxaan haysanaa a bus oo ah 1 bus, oo yacni baska dadku raacaan. A box yacni hal sanduuq. A box. A watch saacad. A watch waa hal saacada. A kiss. A kiss waa hal dhunkasho. A kiss dhunkasho. An axe faas hal faas. Hagaag aynu ka dhigno plural. Xasuuso si looga dhigo plural waa in s ama es lagu daraa. A bus waa hal bus. 2 buses laba bus. A bus maxay ahayd waa hal bus.
laakiin markaynu jamac ka dhignay 2 buses baan nidhi. Marka maxaan ku darnay es ayaynu xagga dambe kaga darnay. 2 buses, 2 bus. A box waa hal box ama hal sanduuq. 3 boxes, 3 sanduuq. 3 boxes, 3 sanduuq. A watch waa saacadii. Maxaan odhanaynaa 4 watches, 4 saacadood. 4 watches, 4 saacadood. A kiss, dhunkashadii. 4 kisses, dhunkasho. Anakas, faas, hal faas bay ahayd. 3 axes, 3 axes, 3 faasas ah, sorry. Sidee ayaan ku ogaan karaa magacyada s lagu darayo iyo kuwa es lagu darayo? Hagaag, waa su'aal wanaagsan oo aan jeclahay inay ardaydu fahanto. Waatanna jawaabtu, ila dhageyso. Inta u badan magacyadu waxay qaataan s, laakiin qaar ka mid ah ayaa qaata es. Haddii uu magacu ku dhammaado xarfahan soo socda, waxaad ku dari es. kow, ch, sh, x, s iyo o. Waxaad ku daraysaa es magacyada. Inta kale ee aan ku dhammaan intan aan soo sheegnay, s ayaad ku daraysaa. Soo eeg tusaalahan. Maxaynu ku darnaa si aan jamac ama plural uga dhigno? Hagaag, waxaad eegi focus xarafka u dambeeya ma ka mid yahay 5tii xaraf ee aynu soo sheegnay haddii ay ugu dambeeyaan es lagu daray. x way ku jirtaa. Marka es ayaynu ku darnaa. Foxes. Haye 2. Brush. Brush maxay ku dhamaatay? sh. Labada u dambeeyaad eegi. sh ayay ku dhamaatay. Marka maxaad ku daraysaa? es ayaad ku daraysaa maadaama ay sh ay ka mid tahay 5tii xaraf ee es-ta lagu daray hadday ku dhamaadaan. Dress maxay ku dhamaatay? s. s waxay ka mid tahay 5tii xaraf ee aynu soo sheegnay ee magacu hadduu ku dhamaado es lagu daray. Marka dress s ayay ku dhamaatay. Marka es ayaan ku darnaa. Dresses bay noqonaysaa. Haye, extra practice waxay iskugu jiraan singular iyo plural. 2 book, 3 class, a lion, 6 hat, 7 match, 1 bat. 2 book waa plural, balse labadii caddayn mid ayaa maqan, waana kan dambe. Haye, kebaynu ku darnaa ma s mise es? Hagaag, s ayaynu ku daraynaa maadaama ay book ku dhamaatay keyna ayna ka mid ahayn 5tii xaraf ee haddii ay ku dhamaadaan magacu lagu daray es sidii ch, sh, x, s iyo o. kuma jirto k. Marka xarfi commonkii caanka ahaa ayay ku jirtaa. Marka waxaynu odhanaynaa 2 books. s ayaa iska leh. 2 books. 3 class waxay ku dhamaatay s ama 2s. waa inaynu ku darnaa es. 3 classes. A lion wax miyaynu ku darnaa magacan? Maya, magacu waa singular, waa hal, ma bedelayno. 6 hat. s ayaynu ku daraynaa 6 hats. 7 match waxaynu aragnaa inay ch ku dhamaatay. es ayaynu ku daraynaa 7 matches. 1 bat bal ka waran? 1 bat maya, ma bedelayno magacan, waa hal keliyaad. 1 bat. Si guud haddii aan u dulmaro cashirkeena maanta, waxaynu soo qaadanay singular iyo plural nouns. Magacyada singularka iyo magacyada pluralka oo ah macnaheegu singular inay tahay wax keliyaata oo hal ah, pluralna ay tahay wax hal ka badan. Haye, waxaynu kaloo soo qaadanay tusaalayaal gaagaaban oo aad iyo aad u muhiima oo aad bal wuxuun aad ka fahmi karto s ama es sida loogu darayo. Midda labaad, waxaynu soo qaadanay magacyo s haddii aad ku darayso. Inta u badan magacyada s ayaa lagu daraa si jamac looga dhigo, laakiin 5 xaraf oo 5 magac hadday ugu dambeeyaan magacyadaas waxaa lagu darayaa es sababtoo ah qaacidada ayaad ka duulaysaa oo ahayd ch, sh, s iyo o iyo x. 5taas haddii ay ku dhamaadaan waxaad ku daraysaa es sababtoo ah
shantan xaraf waxay ku jiraan shanta es lagu daro, laakiin inta kale magacyadoo dhan waxaad ku dareysaa s. Marka cashirkeenu halkaas ayuu noo soo maraya. Intaynu cashirkan cashir lamida ku kulmayno, waxaan igaga tegayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Fii amaanillah.